xaafadda Islii oo ay Soomaalidu ku badan tahay maanta aad ayay u khasan tahay dhibaatada ugu weyn ee ka jirtana waxay tahay nimankii madowga ahaa ee xaafadaha kale ee Nairobi degi jiray waxa ay isku dayeen inay weerar ku soo qaadaan xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee Islii ganacsatada iyo dadka hantida kule Islii waa Soomaali waxa soo guryaa iyo waxa soo dabaqaya aad aragtaan waxa milkiyadeeda iska leh Soomaali sidaa darteed waxay isku dayeen nimanka madowga ah inay boob ku sameeyaan hantida Soomaalida waa kuwa madowgii oo isku dayay inay boob iyo wax sameeyaan iyo Soomaalida oo dagaal kula jirta wadooyinka shaqo xiriyihiin ciidamada booliskana meel gaar ah ay ka istaageen dagaalka tan iyo shalay uu socday oo Soomaalida iyo madow baangado iyo dhagaxaan baa la iskala daalay wadooyinka qaar way iska xiran yihiin ganacsiga wadada koobaad waa ay xiran tahay halkan waa wadada labaad Islii dadka ayaa ku badan isma taqaano meel baa dagaal ka socda dagaalkii xabadda ma aha dagaalkani waa dagaal seefo iyo dhagaxaan la isku adeegsanayo xilliyada habeenkiina la is ogaarsanayo raadiyaha Wirid Online wuxuu idin soo gudbinayaa dhacdo kasta oo dunida ka dhacda si toos ah ayaad u daawan doontaan waa galab casar ah 28 bisha labaad 2017 xaafadda Islii wadada labaad ee magaalada agaarka 5 Street waxaan u maleynayaa xogaa dagaalku uu qaboobay wadooyinka kale uu ka socdaa halkani waa wadada labaad insha Allah waa idin soo gudbin doonaa